sumada aqoonsiga cashuur bixiyaha tax identification number waxaa dakhliga ee kastamada iyo cashuuraha bariga ee wasaaradda horumarinta maaliyadda ee Somaliland waxa dhawaan isbedelo ay ku samaysay hanaanka cadaynta ama la bixista badeecadaha kala duwan ee yaala kastamada si ay u waafajiso xeerarka kastamada isbedeladaasi ayaa waxa ay dheelitirayaan fududeynta ganacsiga iyo hoggaansanaanta shuruucda kastamada sidaas awgeed waxa wasaaradda ka go'an inay hagaajiso adeegyada ay siiso ganacsatada iyo inay hadba hindiso tallaabooyin lagu sahlayo habsami u socodka ganacsiga ee hanaanka la bixista badeecadaha haddaba waa maxay tin number waxay u taagan tahay afka qalaad tax identification number macnihiisuna waxa uu yahay sumada aqoonsiga ganacsadaha ama cashuur bixiyaha waa nidaam caalami ah oo adduunka oo dhan laga isticmaalo waana mid u fududeynaya ganacsadaha inuu noqdo mid kalsooni buuxda lagu qabo tin numberku waxa uu ka kooban yahay 9 god oo tiro ah isagoo u saamaxaya ganacsadaha in xogtiisa ganacsi ay dhowrsoonaato oo aanay cid kale heli karin haddaba ganacsade tin numberka waxaad ka samaysan kartaa goobta cashuuraha bariga ee kugu dhow iyadoo shuruudaha laga rabo ee ugu muhiimsan uu yahay in aad leedahay liisan ganacsi si ay taasi u hirgasho waa in tin numberka lagu qoro foomka cadaynta badeecadaha iyadoo lagu sii lifaaqayo dhammaan dukumentiyada loo baahan yahay waana sida uu dhigayo xeerka dakhliga xeer lambar 27/2016 faqradiisa koobaad oo ina faraysa meelmarinta iyo bixinta sumada aqoonsiga cashuur bixiyaha ee afka qalaad loo yaqaano tax identification number waxaana uu ku waajibinayaa wax soo dejiyaha iyo wax dhoofiyaha intaba inay yeeshaan sumad u gaar ah kuna soo cadeeyaan dukumentiyada cadaynta badeecadaha ee kastamada ee la xiriira waxa uu soo dejiyo iyo waxa uu dhoofiyaba ganacsatada yaryar ee aan sida tooska wax u soo dejin ee afka qalaadna loo yaqaan casual importer waxa loola jeedaa shakhsiyaadka soo dejiya alaabooyinka ganacsi muddo aan ka badnayn 3 jeer oo kala duwan sanadkii isla markaasna saddexdaasi jeer badeecadaha ama alaabta ay soo dejiyeen aanay xaddi tiro ahaaneed iyo qiimo ahaanba ka badnayn $3,000 kuwaasina loogama baahna tin number waxa kaliya ee laga rabaa waa inay soo qaataan kaarka aqoonsiga ee muwaadinka